faraxsanahay inay Nicmo Joker ka mid ah dadkii annaga noo soo hambaliyay commentiyada naga soo bixinayay waqtiyadii maharkayga oo baraha bulshada ku jiray aad baan ugu faraxsanahay abaal nin gala ayaa maxay abaal nin gala walaal arkay laakiin gudal maarkaan ugu gudaya walaash waxaan leeyahay walaal hambaliyo walaal waxay ka mid ah dadka wallahi bilaa farxadeeda nagala qayb qaatay waxay ka mid ah dadkii farxadeeda nala naashnaashay commentiga naga soo bixinayay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wanaagsan tahay markii soo dinida calaykum joogtaan waa markii ay maqlaan soo markii gulaysan soo martaa dad waxaan ku asan jirin kortaan soo kala sartaan kana Allah gareysano shirkisan loo kana asxaabtiina herdina aad iyo aad bad maasid saxaabada mahad celinaya markii maqal cusub ee maqalkan areen ku dhaxto baya mugtaagii yara tu jiray mugdooyaan sidoo caadadahay maanta waxaan wadaa hambalyadan wada wax weeyaan walaashin Nicmo Joker ama Nicmo Warsame iyo sidoo kale fanaankiina qaaliga Elkaas Qays oo meherkooda ka dhacay dalka Mareykanka gaar ahaan Minneapolis gobolka yani Minneapolis buu ka dhacay runtii Joker waxay ka mid ahayd dadkii baraha bulshada maalmo gulooto ugu hadlaynta ama lagu hadlaynta badnaa waxay siisteen wadooyin runtii daar calasow laakiin maanta war farxad loo inta ka doon ayeen wadnaa waxaan aad u jecelahay ama aan aad ugu farxaa marka arko qoys Soomaaliyeed oo bulshada Soomaalida dhexdooda caan ka ah ama isku mihnada isku kursiin la arko runtii aad baan jecelahay sababta aan jecelahay wax weeye markasto qoysas badan oo muslimiin si bataan qoysas badan oo muslimiin yimaadaan waxa yimaado wad badan oo muslimiin waxaan dhashay khayr badan markasto guurku badan waxa timaadan nimcada markasto oo xumaanta iyo fusuqa iyo sinada laga sii fogaadana waxa timaadan nimcada markasto lagu dhaco xumaan aad ku dhacdana waxa bata xumaanta iyo macaasida ayaa badata aad iyo aad baan ugu faraxsan runtiina walaalkeen Elkaas Qays iyo sidoo kale fanaanadena qaaliga iyo sidoo kale fanaanad ma aha Nicmo Joker fanaanad bigeelita muuqaal xorriyad xidaan ka diyaariyay fanaanad baan lahaa iyo sidoo kale walaasheen qaali Nicmo Warsame ama Nicmo Joker ama Nicmo Qosol dasawta qanaad Nicmo ka farxiso hadda sawta qanaan waxay ka mid tahay runtii dadka sida aad iyo aad ka ugu daydo marka aniga shakhsiyan laga hadlo ama aan taawado markii baraha bulshada loo eego waxa weeyaan qof talent leh waxa weeyaan qof ka qoslin karaysa waxa weeyaan qof yani ku farxad gelin karaysa in daawato muuqaaladeeda waxa weeyaan qof runtii marka ilaahay laga yaabo runta laga hadlayo qof runtii talented ama muhibada ilaahay uu ku dhigay iyada weeyaan walaashin Elkaas waxa weeyaan isaguna inta badan raabra dadka isaguna ka qosliya bariga gudaynayro uu joogay Minneapolis mara waqti hore ayaa ugu dambeysay balse laakiin maalmihii u dambeysay waxa arkay TikTok-ta iyo sidoo kale Snapchat-ka wax iskaga soo duubaya oo soo dhigaya baraha bulshada ama runtii ama soo dhigaya Snapchat-ka bartay dadka ugu badan ugu xireen ama ka daawadaan Nicmo Joker soo dhigayso saaka markaa soo toosay ayaan ugu soo toosay hambaliyadooda walaalahin oo bariyo urdi yara iyo sidoo kale iyo Axmed iyo isaguna haban miriya asxaabtaas soo gelisay halkay waxaan si warkan bar soo xaqiijiyo ka daba tag TikTok-ta ayaan galay waan ku arkay Snapchat-ka ayaan galay iyadana sidoo kale isla fanaanadena weyn oo qof looga qaateen ah inta badan beenada aan wixii ay sameeyay ama wixii soo dhigta aanu noqon karin waa fanaanadena Hodan Cabdiraxmaan oo isla Minneapolis kula dhaqan ama kula degan Nicmo Joker iyo Elkaas iyadana soo dhigtay hambali ayaan leenahay runtii aad baan ugu faraxsanahay waxa la maanta Nicmo Joker waa marwo dad badan oo xumaan ku sheegin waa jireen Nicmo maxay nimcaankii kale waxyaabo sheegi maanta laga xishoodo shalada lahaydan waa iska abulayo ma aha yani marwo ma aha iyo waxba hadda sheegaysiin maanta laga xishoodo ayaan la hirnaantii waxaan ku faraxsanahay walaasheen qaali iyo walaalkeen qaali Elkaas in meherkoodu u dhacay aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay Nicmo Joker dad guursatay waxa dashay marwo yaantaday waxa dashay qof runtii ku halgami karaysa waxa dashay qof runtii adiga kula jahaadi karaysa waxa dashay qof mihnadaada kursi qaadi karaysa xawsid mudan inay alfanaan Faisal Xawaasho hore oo soo kala tagay Nicmo Joker ama Nicmo Warsame hadba soo taqaanaan idinku oo ay hore wada isu qabeen balse laakiin uu furinkooda dhacay waqti sii fogeen adigu 2 sano si sanad ka hor ayaa u ahaa walaasheen mar labaad waxaan ku faraxsanahay in marwo tahay waxaan ku faraxsanahay runtii waxaan leeyahay hambaliyo kuriga ku jira waxaan ku faraxsanahay in Nicmo Joker ka mid ah dadkii annaga noo soo hambaliyay commentiyada naga soo bixinayay waqtiyadii maharkayga oo baraha bulshada ku jiray aad baan ugu faraxsanahay abaal nin gala ayaa maxay abaal nin gala walaal arkay laakiin gudal maarkaan ugu gudaya walaash waxaan leeyahay walaal hambaliyo walaal waxay ka mid ah dadka wallahi bilaa farxadeeda nagala qayb qaatay waxay ka mid ah dadkii farxadeeda nala naashnaashay commentiga naga soo bixinayay
macaa muuqaaladan soo gelino runtii noo share gareynayay ayay ka mid ahayd waqtigii waxaan ku leeyahay walaal maanta waa waqtigaagii waa jaaniskaagii waa timekaagii walaasha macaanay hambali ayaan ku leeyahay adiga soo sheegayba ilka casaqays ama ilka case alfanaan ilka case yaa iga kala baro iga baro dadka wuxuu ilka casaqays waxaan ku risaa hablo ugu soo ugu tafaba ugu dambeyn nicmo joker soo qorsan karayso shabaqay ku soo ridii moogtaa maalin badi ba shabaq ku soo dhacaya moogtaa marka waxa la ciibay waxa ilka casaqays hablaha buufiyo adag kala baray iga bar dadka iyo kuma jeeday waxay ku soo soconayo waxyaalahaas waxa jiraba ugu dambeyntii waa soo xira galay wax maanta weeyaan xaajiga masuujka ma ya nicmo joker walaal qaali hambalyo sidoo kale waxaan jaartiga uga faa'iideysanayay inaan ugu hambaleeyo iyagana sidoo kale maayarada iyo sidoo kale xildhibaanada iyo sidoo kale deegaanada la doortay ee Somaliland oo aan joogno oo khasab nagu tahay inaan hambalyeynaa iyagana dalkeena iyo dadkeena iyo ummadeena markasta wax wanaagsan oo soo kordha runtii waan ku farxaa waqti xaadirkan waxa la doortay oo anagu ka warhayaa maayarka caasimadda ama magaalada ama degmada Berbera inta warkiisa hayo Cabdishakuur Cidin waxa ku leeyahay xilka lagu magacaabay adigana ilaahay kugu asturo walaal oo xilka lagu dhibay sidoo hore ugu haysay maanta si lamida oo ka sii wanaagsan idamka ilaahay wax noqonaysaa inaad hayso sidoo kale madaxda kala duwan iyo sidoo kale wasiirada iyo golaha deegaanada iyagana la magacaabay Somaliland iyagana waxaan u hambalyeynaya waxaan leeyahay kala day waa idin doorno bacad beedin taagneen oo idin shaqeynayno idinka banaanka idin taagneen maanta markaygiye naga farxiya waxaan leeyahay saaxiibayaal waa markaygiye ha anaga noo shaqeynay anaga waa idin shaqeynay waa idin cadeynay waana runtii waana idin shaqeynay maanta idinku noo shaqeeya ayaan leeyahay aad baan ugu faraxsanahay runtii idinku waxaan rajeynayaa hambalyada walaasheen nagala soo qayb qaadan doontaan kumintiga ugu soo qor doontaan walaasheen hambalyo aan ka farxino maqaalka aan share garayno aan asxaab badan gaarsiino si meel fog u gaadho walaasheen ay farxdo ay aragto garab Soomaaliyeed iyo gaashaan Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed 18 milyan ee Soomaaliya hore u sheegtay inaan ka mid nahay walaal nicmay وما سنتهاي كمان واحد علم ما أنت أما كومنتي جاي أما رانتي فرحة عندنا قيب صدق لكن ما تعيان نقول فرحة هذا وقف في سنة حلاي همبليو كل يكون شر يعني كل ولا همبليو إن إلهي كويس كبركوبة إلهي كوي وحرك كلاسيو إلهي كوي أولاد كلاسي إلهي كوي يارسي له إلهي كوي وزيد وضع الأورطة الله هذي كدكو أتبديكم مع سنتين وأتكم مع سنتين كمشين سوبر تاكي تهرج كتب بس أنت تعصب سورو مقالكم ما تحسين اللي هو داقو وأنا دي صوب بندقو مقالك حديكم ودر حد كتير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Soomaaliya 18 milyan ee Soomaaliya hore u sheegtay inaan ka mid nahay walaal nicmay وما سنتهاي كمان واحد علم ما أنت أما كومنتي جاي أما رانتي فرحة عندنا قيب صدق لكن ما تعيان نقول فرحة هذا وقف في سنة حلاي همبليو كل يكون شر يعني كل ولا همبليو إن إلهي كويس كبركوبة إلهي كوي وحرك كلاسيو إلهي كوي أولاد كلاسي إلهي كوي يارسي له إلهي كوي وزيد وضع الأورطة الله هذي كدكو أتبديكم مع سنتين وأتكم مع سنتين كمشين سوبر تاكي تهرج كتب بس أنت تعصب سورو مقالكم ما تحسين اللي هو داقو وأنا دي صوب بندقو مقالك حديكم ودر حد كتير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته